بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين marka hore waxaan aad uga mahadnaqayaa dhammaan marshafta ka soo qayb gashay munaasabadan sanad guurida 16aad ee ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ugu horeeyo gudoomiyaha baarlamaanka madaxweynayaashii hore walaal wasiirada axsaabta qaranka shacab weynaha iyo marti sharafka dalalka ajaanibka ay ka mid yihiin Djibouti, Ethiopia, Ingiriiska iyo cid walba Soomaaliland wax tartay oo ciidanka ka joogtaba aan wad koobi kareen dhamaantood uga mahadnaqaynaa ka soo qayb galay shirkan waxa kaloon aad iyo aad u hambalyeynaya dhammaan ummadda Soomaaliland iyo qaranka Soomaaliland gaar ahaan ciidamada oo dhan iyo ciidanka maanta ay joogno xuskiisii ciidanka qaranka taliska guud wasaaradda jananada saraakiisha saraakiil xigeenka dableyda iyo xaasaskooda waxaa loo hambalyo ilaahayna sanadkaas sanadkan uu gaarsiiyo barwaaqo iyo bashbash weli ma qoran taariikhdeedu ciidanka qaranka Soomaaliland lama dejinin taariikhdiisa laakiin markaynu ciidanka qaranka Soomaaliland taariikhda bilaabayno waxaanu ka soo bilaabaynaa markii ugu horeysay ee Soomaaliland protectorate la bilaabay ciidankeedii ugu horeeyay ee qaran ee la bilaabo horena wuu sheegnay munaasabadii ka horeysay 1902 ay ahayd saylac baa laga bilaabay markaasoo la sameeyay xadka Djibouti oo markaa Faransiis gumaysanayay iyo British Soomaaliland u dhaxeeya halkaa laga soo bilaabay ilaa maanta ciidanka qaranka Soomaaliland wuxuu soo hayay taariikh isbedelo horumaro iyo waayo duruufahooda leh tubu dheeraanayna taa maanta waxa Ilaahay mahadiya in ciidanka qaranka Soomaaliland muddada uu jiray ay gobolada la soo noqonay maanta saddex sano ah intii uu jiray inuu adkaaday oo ciidan qaran noqday waxaan u sheegaynaa dhammaan caalamka inaguna nafaheen lagu sheegaynaa kuwa kalsoonida ka dhiman tahay inuu ictiraafin waxaan u sheegaynaa ciidanka qaranka isaga oo la ictiraafin ayuu ku xoog weyn yahay ciidamada kulli ictiraafay ka disciplin wanaagsan yahay ka adkaysi badan yahay ka aqoonsi badan yahay ciidanka qaranka waa jihadiisa halkan waa laga sheegay ku noqon maayo waxaan u sheegayaa ciidamada qaranka sidoo kale duwan dhammaantood muddooyinkan dambe oo qaranku uga mahadnaqayaa iskaashi wacan oo amniga iyo xilkii la saaray inay guteen maanta waxaa si wacan wada shaqaynaya oo isku xiran ciidanka qaranka ka booliiska ka asluubta ka socdaalka ka badda iyo ka wardoonka oo haddii ay isu baahdaan daqiiqada dhexdooda ku xidhiidha wixii hawlooda gudiya taasaanay ku sugeen amniga anikooda ee dadka ku jooga cadowga ku daafaca waa mahadnaqaynaa taliyaashooda iyo dhammaan xubnahooda iyo hawsha qaranka u haya adduunyada nina magaca buu joogaa nina if buu joogaa ciidamada qaranku waxay doorteen nooca yihiinba oo ciidanka qaranka ugu horeeya inay magaca doortaan dalkana wax uga tagaan ee aan dheef doonin waa ku hambalyeynaa doorashadooda iyo qaranka hawsha u dhaafo ciidanka qaranka haddaan intaa ku dhaafo iyo munaasabadan maanta waxaa kaloo hambalyada ku soo gabagabeynaya kooxdii halkan gaashaan oo runtii iyaguna misaajida barnaamij wacan noo dhigay aad iyo aad baan iga hambalyeynaya taasi waxayna tusaysaa Soomaaliland inay leedahay dad mufakiriina dadka la yidhaahdo way heesaan way gabiyaan waa abwaano runtii waa dad mufakiriina waa dadka odorusa dadku waxaanay arkan intooda badan waa dad ildheer oo cabiraan nolosha waxay tahay dhinac walba dhammaan dadka fakirina waa mahadnaqayna gaar ahaan kuwii maanta inoo soo jeediyay fikradoodana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayna haddii aynu danta guud eegno maanta caalamka waxaa ka jira isbedelo badan nin waliba halkiisa ayuu ku daalan yahay oo ku dhibaataysay dad badan oo inaga warwar baa ka ilaalinama ictiraafsanaya daala aqoonsanaan baynu hayo faqri baynu hayo dadka warwarka iyo mustaqbalka xururka ah warwar badan iyo walaac bay muujinaan markaasay dhalinyaro badan niyad jabiyaan markaasay dhalinyaro jahortaa qaar tahriibaan qaar meel kale isku qaadaan oo ay nolosha meel gaaban ka arkaan horta waxaan idin sheegayaa dadka warkaa xun sheega ee adduunyada xagga xun ku arka ee aan xagga fiican ka arago qofka aad ku kalsoonay ilaahay aaminsanayn baan taa qaba
marka leeyahay waa ictiraafay adduunka waxa ugu ictiraaf weyn oo lagu tixgeliyaa waa Mareykanka waxa la yiraahdaa madaxweynaha Mareykanka ayaa qofka adduunka ugu awood weyn waa soo raacsan wajiga ugu dhaqaale badaha caalamka oo dhan diyaarada iyo maraakiib diyaarada xambaaraya iyo gujisyo iyo cirka qaar joogo oo dawaafiiri maanta madaxweynaha Mareykanka maxkamadda gudaha ka saaray go'aysi waa saystaan labada xisbi arkaysa wax ka dhacay wadada nin waliba halkiisa intuu ku asatay adduunka waaye nolosha ayaa dhibaato bini'aadmiga loo diray quraanka sheegay in bini'aadmiga maanta dhashay ilaa maanta dhimanayo oo dhibaato xalinayo qof waliba intaalkiisa iyo halka uu joogo maanta waxa adduunka oo ka dhaxla taariikhda oo la yiraahdo dimuqraadiyadda iyo ilbaha iyo taariikhda ingiriiska ugu facweyn ingiriiska maanta dib loo xoroobay oo habeen ka baxay Yurubiyaga Yurubiyaga isagina kaleeyo maanta oo asay Soomaaliya xorriyadda soo helay oo adduunyada dawlad xiriir doonaya oo bulsho cusub caawl ku fureeyay oo arkaysa wax ka dhacaya oo habeen iyo maalin seexala dadka ay taatiibsan bariga dhexe xiriirka carabta maanta tahaysata cidna ma haysta ilaga loo seexanayna in khaliijka joogo caawl lagu seexanaya ma jiro Iran iyo Sacuudiga waa haysta qatar iyo Abu Dhabi waa haysta iyaga barwaaqadii soo jiiray nin waliba caaw fikrad buu ku seexanaya iyo walwal iyo walaaciyo toro maxay noqon waa cidii dhaata ma jirto idinka nabad ku seexanaya dadkii raaysa ilaahayna aaminsan baa la yidhi kama kana dhaafo markaynu eegayska Afrika ee ku noolahay maanta waxa ka socda isbedel cajiib ah caawanina iyo dal caawa Soomaaliland ay chapter halkaas ka nabad badan ama ka walac yare ma jiro Suudaan waa aragtay wixii ka dhacay saaka Masar oo Egypt iyo Ethiopia iyo ay Masar waxa ka dhacay biyo la isku haystaa midkood Masar wax ka dhacay Allah Ethiopia isbedel cajiib ah ka socda oo adduunka oo dhan eegayo oo ay u rajeynayaan ka nabad galaan isbedelada soo socda oo ku dhameystaan waa jeerkeena barwaaqada inuu soo gaadho jeerkeena dabkiisa inuu soo gaadho dabka muqdisho oo ku socda ugu filan jeerkeena kana ay dabka ka dabiyo kuwa iyagana ka dabiyo iyana Ethiopia caawaadkan waxyaalaha ka socda kuwa fur hadalkeeda daa hamar iyo Soomaaliya sadkiisa uu dambeeyo oo ducaynay ilaahayna ducada wari laga wada qarin oo waa gubanaya iyagana wari talama helin inaga dhibay ugu haya كيا واقعسا مدحوينه ku-xigeenkii baa ishaya wali ruutu iyo dawladda loo saarayo waxa soo noqday Raila iyo ninka adugeeda maartay loo tirayeen labada aabayshaysteen ee Uhuru oo labadooda madaxda isku qabsadeen siyaasadda oo laba qoys oo ku hadba Kenya ah ayaa maanta isu soo sanqaraya oo kuwii kale ka eegaya oo laga yaabaa in kistoorka dadii u dalaan waa adduunyada nin wadan ku seexaraya ma jiro dhibta adduunka waa lagu talagalay بالآدم يا حلينا كم بيننا سأسوي لهاي المقالة وموافقة إلى نبذ النسي وحا أدوك يسوي لنا أيوه إني وربك الأحسن تاعي ما أنت سومانا سنة كنوحها سنة كنا بضة إيام الدمالة إيه سفكرت كتباتين كود يبقى يكون حليسي إيه دور عيرين نسور بالمن لا بس إنه عادوا يقولوا وحورنا يتقالوا قبائله قال رحل عيد الله قال كلا أبر بقانا وحول بعض السؤال ويسوق جيل السؤال هذا أصلا يبغى يجيب وجريه وكذا وحياه المهدية يدور عيد رسول كلمة أو عيد ما أجنون لوكين أو ما قوي هذا لوكين أو عيد إنه يقولون تغيير إن تذكين أو الشعب كل بيها أو هواك عروسكم بيه ليه عم بتشعر أو أضيف كمية أو شيخ كمية أو جنعسل كمية أو أبوان المركي أو رسالة كواس الرعاية عيال قامت جاي يقول ترى أبوان mid waliba dhiigooda ay ka jeediyay oo kii heesay ka heesay oo kii warramay wanaagsan ka sheegay oo dawlad iyo dad ay soo tagday in maanta dalkeena gees ilaa ka gees nabad ugu seexanayo beeli heshiiyeen ciidamada saad wixii islaashay heshiiyeen axsaabtii qaranku ka heshiiyay doorashadii inay wada gasho iyo fursad oo hadhay mooyaan buusha ilaahay masiiyay waxaan u baahanahay inuu أو يشمل من أحد ثلاثة مركز الصومالي دول سيحرمات شنطة الصومالي أي سوق غير يسيء وحرقة بالعبي سومالي إيضا فرسيت كاهي من دول الصومالي حر مركز ولا جيد إيضا ضمان قبل حقوق كبر عبا هرجيس وهوي سوقاتها وهوي قضية فرتلا وهوي هرجيس قضية شديد يبرع
يلا سعانا يبورمه سومالنا يسود الجي تا أي نوع بنعمل نقل كأنه هاي إيه نسمع كتر الحق وهريب ضد أبو أي أو يشك عليك أو ولا كأو aan arkayso inay Soomaaliya tahay Afrikada qura mid yar oo mooyaan la gashay isticmaalkii heshiiska kid walba iyo reer walba u yimid la saxaday dhammaan heshiiska mid ka bilow sayra ilaa iyo la soo heshiiska la galay isticmaalku wuxuu wada ahaa dalkayaga annaga kuma dhalay kartaan markaan u baahana naga guuleysaan taladana noo dhaafmaysaa ma jiro dal Afrika oo kale oo heshiiska qortay oo waxay wada la dhibaataysan yihiin inaga oo taasi كنت أنا الصوماليان تاريخ ما تنوع على الصوماليان إلى يروح رمر يسكتش يسميسو كوا نبان إرشاد كني الصومالي وحبك وإيه من التاريخ الصومالي إنك يقول مدينة بهاي ترى إنه بهاي دعاء إنه بهاي وقت كيسي دبتور عن وقت كسرت تهنا جنوه هيا أنت ترى هيسوي شعب الصومالي إيه ما تكسبه يشوفه إيه حمر يشوفه إيه جرو يشوفه joogan u samareen waxay u baahan yihiin nabad waxay u baahan yihiin talo cid ugu sakaysa wax ka soo yeena waa inaga hadaynu kuwa ku dayacro oo ugu dhixweyno inaynu wax u qabano oo inagu horumar sameeyno kuwa madaxda u ah ee sadorka sare leelinaya ee iyaga isku diraya ee kuwa maanta jooga 7 bilood soo dirayaan u samareen dadka degan miyaad ka sugaysaa kuwa maanta talada haya adiga inay wax ku taraan waa maya kuwa tala ka sugi mayno عالم اعتراف بينهم وحنا كان ترى الصومال كل دجالما صوماليا وجويا قرقوريا مجال سوريا وكيسان إسماعيل وكيسان بايلما وكيسان جرول كوا كلا سال ويا وكلا حقنا عيدا كي أودي اعترافية الدولة هي سفارها ويانا يجي يسكت رايا إننا جانا أو حد واتسين وهاي ما هم إذا نقولوا عندنا واترى هو أي صومالي ونكون شبريا كوا ترى هاي قول هذا صدره halka maanta waxa lagu haqaltaaga ma jirto meesha waxa ka socda waa dacaayad iyo propaganda iyo TV la isticmaalo oo aan cidna u dareeyin marka uu ka soo wada ee inuu nabi Soomaaliland maanta maxay la gudboon Soomaaliland xukuumadda maanta hogaaminaya laba tan dadaal waxay soo geysay marka hore saddex qodob waa in dalka nabad ka xasiiso dhibaato kastoo dhacana waa in loo maro hab nabada waa in la yareeyo khilaaf kasta khilaafku waa dabka oo kale dabku markuu walaaqo horta waa la xidhaa markaas la dabiya dawladda siyaasadeed waxa weeye khilaafka bini aadamna uu imanaya gobolada isku dhacaya beelaha isku dhacaya xisbiga isku dhacaya waxaynu u baahanahay khilaafka marka hore in la koobo dadka kala dabiyo laba in dadka la mideeyo oo dadka maxaa yaala dadku war isma hayo maanta baa saacado iyo war isma hayaan gabadh iyo barano war isma hayaan ceelgaamiyaha gisada joogaan war isma hayo maxaa dhacay muddo dheer oo gas iyo qalaas dalkeena ka soo joogay oo ku sidan boqolaal sanadood ilaa dagaalkii labaad ee adduunka ilaa maanta geeska Afrika ma helin guud ahaan nabad kolba ciidamada isku dalayay u fiirso awooga dagaal ku ah كوريتو كتوسي ولا نالسو ولا شيء ما تقبل وكوريتو كيقال معرهد كوها جسكم واسكوت برماتي ولا وسيلو يكون كوربا يلا هذا قال كادوك هو حوش يسوي صور تجار حبر روسي كوا كوافرتا دو عدير إلى باندر وكوي برجال markii xorriyadii la helayna hoggaanka waxa noqday ee sii socday waa dagaaladii la oran jiray dagaalka qabow ee labada qaybood bariga galbeedka Afrika gudaheeda baa kiina ina saameeyay oo ka balooya waxa ka dambeeyay jabhadii warigees Afrika boqol sano ku jira qas waa la qaba gees Afrika dhan baa la qaba waxa qaba maadaama dhibaatada Soomaaliyeed ay ku horeysay oo jabhadaha iyo dagaalada sagaashamaadka ay gashay inay Soomaaliland qorsata ugu soo horkabata ee ka baxda ee dhamaantood wargaal doona ee loo soo noqon doono ee kuwa maanta indhaha ka leelanaya ma ixtiraafsan ayagu ima doonay ixtiraafi doonaan waa haday reegalmeeyeen midnimada iyo talada kaleeno inaga inoo taala intii hore wuu soo qabanay oo wuu soo dhisan maanta waxa taagan marxaladii ahayd koow nabad laba midnimada saddex horumarka way dhibirteen la yiraahdo inta la sameeyo way dhibirteen laakiin waxa la rabaa qof waliba inuu yada ka keeno oo maxaa laga rabaa qof walba suudaanka
taajirka xaajiga lacagta leh siyaasiga kareermiga waxa laga rabaa oo hore u maraynaa marka aad waxa naftaada la jeceshahay walaalka la jeclaato wax tiftiye marka aad cun iyo cunto ahdo marka aad xantiisa wanaajiso ee aanad balaayad horseedin ee balaayo aan noo dhaweyn aanad fidinin sida dhacdo mar walba taasaad ku gaaraysaa nabad iyo horumarkaaga ubadkaaga meel ku gaaraya ku gaari mayna inagoo kala oodan oonay baran iyo gabaysaa bool ku gaari mayna lascaan iyo goori warayska warrabo warhaynin ku gaari mayna hargeysiya say codska warhaynin maxay ku dhanaysaa iyadoo nin walba aaminaad Soomaaliland tahay oo sayrac ka guurto oo degi karta lascaanood oo tubtay inaad ammaan adiga iyo xoolaha intaad ku heli karto inaad lascaanood aad ku xiran tahay aad ku wareegsana aad taado waxaan ka talaya hargeysa intaad lascaanood taado oo aad ka taliso berbera yaa gudiga waa Soomaaliland xeelkeedii dastuurkeena ogol maxay gool soo xidhayna maxaa midna ugu xumaya waxaan ku talanayaa maanta in aynu ka bilowno qarannimadooda sida taasoo horumar ka imanaya dabcan faqiir baynu waa run faqriga xoog baa kaga bixi karaa baryada inuu bixi karo maanta labadii sano dadaalka aynu sameynay ilaahayna roob inoo gaaray waxa inoo haynaa waxaynu maanta beer oo Soomaaliland gacanteeda ku beertay oo kayda ku haysaa hay-adda ka hortagga afweynka gacanta ku haysaa raashin ku filan karna haddii ay dhibaata dhacdo inta aanu soo gaaray adduunku caawa xamaye iyo waa talaaqino waa taasoo si xoojina gobol lagu beeri karaa taale raashinkaasi maanta waxa uu badan ka soo baxay waa 3 meelood kaliya hadday calaf xoolaa tahay iyo hadday xoolaa tahay waa beer iyo xaaxi iyo wajaale boqolaal meelood ka beeri karaa waxaynu ka cabanaa biyaha la siiyo waynu qodan karnaa dhaqaale iyo awood haddii isu geyno biyo xidheeno gobollada haradada aynu ku xidhi karno waxaa laga yaabaa dhaanka ama xafiidka waraabin kara magaalo nuskeeda inuu u baahdo 500 kun $500 gobol walba qurbajooggiisa iyo taajirkiisa iyo xoogga la sugaya way xidhan karaan intaynu gacanta horsano leeyahay hay'adda hiblaayo noo kaalay waa caqli isu geyno inaga maqan waxaan ku soo ururinaya Soomaaliland maanta waxay loo distoorka waxay leedahay labada gole sharci dejinta iyo golaha deegaanka iyo madaxtooyadu waxa koob ka ah loo ilaaliyo sharciyada qaranka iyo distoorka si loo ilaaliyo waxa koob ka ah iyagu laftooda hay-adaha loo doortay inay ilaaliyaan distoorka wuxuu qorayaa doorashada iyo xilku waa 5 sanadood dhamaantood baarlamaanku waa 5 sanadood madaxtooyadu waa 5 sanadood dawladdu waa 5 sanadood walaalayaal maanta si uu distoorkeenu u sii jiro si qarannimadeenu u sii jirto si aynu hore ugu marno si aynu markaas soo baxno dhammaanteen waxaynu wajibayn xoogga saaraysan doorashada u qabanahay doorashada waxaynu hor joogaa waa findhic waa wax la daweyn karo 3 xisbi qaran waxay isku raacsan doorashada dhammaan shicibku wuxuu isku raacsan doorashada dhammaan golaha baarlamaanka fadhiyana waxay ogol yihiin inay muddo dhaaf yihiin oo loo baahan yahay doorashada toban ka dira waqaayo fadhiyo gudoomahood iyagana waa ka diyaar maxay u qabanayaan yaa inaga shaqeynay macadu waa soo dhex galay iska fahamsiin la mado qomayna nahayo intay ay dhex taalay dhawaan leeyahay waxaynu ku muraynaa 2 sanadood hal bedelo komishanka doorashooyinka hal bedelo iyo sharci ma aha haddana waxaynu baroon kala doortay sharci ma aha iyo la bedeli kara in kala door war waxa soo doorashada joogsan kara ma guddiga doorashada hore waa nimadeedii waa waayaan way u baahanahay kama maarano kuwa dambe la doortay inaga dooranay waa sharci waa dadkeedii iyo inaga oo dhammaanteen talaalo soo tagnaa sano doorasho qofsano qaban kara insha Allah waana dhamayn doonaa gabagabana way soo gaari doontaa arintaas xalka in hayaan waa intaana ma aha inuu u dumo distoorkeedu ma aha inuu dalku doorasho waa khalkhal iyo soo hormaad ku yimaado waxa soo jeedinaya inuu dhammaanteen u gudbo si doorasho loo lahayn suuqa ciidamada qaranka maanta wixii uu qabsoomay waxyaalaha ugu waaweyn ee ku aqbalay waxa kamid ah waa markii uu horeysay ee 110 leyli sarkaal lagu taabanayo dalka oo ay ka mid yihiin 10 hablood aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya waa talaabo hore
waxaan ku abarinayaa inay u ergesho shaqo qaran oo imika loo diyaarinayo intii ka horka baxday inay soo gashan tahay barkooda waxaan ku abarinayaa ciidamada kale waxaynu dhammaynay xeerkii xaqsiinta ciidamada qaranka oo dhan oo aanay noqonin ciidamada qaranku markay gowaan inay garan waayeen meel taaniyo cidka mas-uul ah marka sharcigaasi waa dheeyahay sanadkan ka bilaabo waxaanu bilaabi doonaa in lagu dhaqmo oo qofkii ritaar garooba ama naafoobe ciidamo ka mid kolba tabarteedu waxay tahay wax ugu badan ugu weli kara ay noqoto inay barbiro noqoto in xaq la siiyo iyo xuquuqdooda ciidamada beshkooda in la siiyo laga bilaabo taasoo lagu dari doono shaqaalaha dowladdana waa lamid isagana waa raacin doona waxaan ku abalinayaa ciidamada qaranka oo dhan oo doonaya halkan inaan ka xuso inay ciidamadu dadaal badan muujiyeen sanadka gaar ahaan ciidanka asluubta dhismayaal badan iyo dadaal badan inuu ka sameeyey intii muddooyinka dambe ah hawlihii ciidamada asluubta sanadkii dhoweyto waxay faatixada uleynaa geeriyooday taliyihii ciidanka booliska allah naxariista fadal faatax bismillah berigii lixda la dilay ayaa waxaa la yidhi waxaa la dilay lixda oo jabhadii maanta loo yaabo inay kala yaacdo dabeetana b b c wuxuu ka yidhi gudoomiye magaasirayaha Soomaaliya loo wada lixday dhammaan shacabka wada lixday dagaalkuna uu soconaya qaranka uu horu maray maalintii fadal dhintay ee ku-xigeenkiisu la xanuunsaday shicibku warwaray dadkuna aad buu yaabay nabadgelyada waa loo baqday waxaan idiin sheegayaa qaranku inuu leeyahay boqolaal fadal boqolaal lixda iyo boqolaal lamid ah oo halkii soo qorantana duuxee dhehriyo kaliyihii loo arkeenay isaguna weli hawshiisa jirto xulad yahay dadku aad iyo aad bay umahadsheen hawshiisa isagana waxaan ugu rajeynaa inuu sii wada hawshaa maantana dhammaan ciidamada qaranku talabooyinka ay qaadeen oo kumaadeen waa inay halkaa kasii xoojiyaan mar labaad baan hambalyanayaa mar saddexaadna waan hambalyanayaa guul iyo goolna baan noo rajeynayaa dhammaan Somaliland midnimo nabad iyo horumar waa inoo saddexdaa mabda wasalaamu calaykum waraxmatullaahi saaskan waxaynu bixinaynaa bilaabo ciidamada qaranka waxaanu dowla aan qoraynay sharcigii garaadada ama darajooyinka lagu kala qaadan lahaa waqtiga la qaadanayo shuruudaha lagu bixinayo shahaadadaha lagu qaadanayo isna waa gabagabo waxaynu sii dhammaynay xeerkii xaqsiintoo sheegay iyo waxaynu soo dhammaynay xeerkii biladaha waxaa la bixin doonaa biladu qaybsan iyo bilad geesiga qaranka waxaa jira bilada howlgalka waxaa jira bilada aqoonta ninku hadduu keenay infection cusub waxaanu bixin doonaa guud ahaan waxaa la bixin karaa hadba ciidanka tiradiisu maanta intay ciidamada kala duwanaa qaranka oo dhan 750 biladood oo isugu jira dahab iyo qalin oo kala qaybsado biladgeesi qaran biladgeesi aag waxaa ku xigi doonta taawulkarka tada'da asluubta intuu shaqeeyey aqoonta ilaa dable ilaa janka u sarreeya maanta waxaynu saaloo soo qaadanay labada taliya qayb ee aagga hore tukarad oo ahaa labadii taliya qaybeed ee muddo 20 sano ku dhowaada aagga hore jiigatay oo iyaga ciidamada qaranka ay ka mutaysteen in loo aqoonsado inay yihiin gutooyinka koowaad ee ugu hormaray inay helaan biladgeesiyaal labadoodii taliya doolaan iyo axmed labadaba waa garanaysaan labadaba hadda waxaan ku biladgeesi qaran waxaanay u qaadayaan ciidamadoodii